Apple waxay ku dhawaaqday taleefankii in muddo la sugayay iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro ayaanan ka muuqan wax isbedel ah markii loo fiirsho iPhone 10 Max. laakiin markaad si fiican ama si dhow u fiirisid way ka muuqataa isbedel badan markii loo fiirsho iPhone 10 Max. sidoo kale wuxuu leeyahay dib u habeyn. si kastaba ha ahaatee iPhone ayaa mar walba selfie-da ay iPhone uga qaaday koobka telefoonada kale, taasoo kusoo kordhisay camera 12 pixel. telefoonka iPhone 10 Max ayaa markii hore lahaa keliya 7 pixel. waa dareemi kartaa isbedelka ballaaran ay ku sameeyeen iPhone, taasoo uga hormartay Android ama telefoonada Samsung ama telefoonada Chinese-ka. tartankay kula jirto Samsung ayaa ah tartan aan dhammaad lahayn, tartankaasoonan kaab iyo hadiyadaba isku guddoonsiinin, laakiin yaa suuqa ku horeeyo ama yaa suuqa hogaaminaya. wali waxaan ku jirnaa dhanka kaamirooyinka ee iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. waxaa laga yaabaa inaan ka tegay iPhone 11, laakiin iPhone 11 ayaanan wax badan uga dugnayn iPhone 10 Max. taasaan xagga u tegayna sababto tahay malaha kaamirooyin badan, sidoo kale dhanka pixelka wuxuu kala mid yahay iPhone 10 Max. sidaas ayaan iPhone 10, iPhone 11 Pro, iPhone 11 keliya aanan wax badan ka sharxi doonin, laakiin sharxaad inta badan ugu bannaan doonto iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. camera aan inaba caadi ahayn, taasoo kaabka uga qaadayaan. sidoo kale mar labaad Samsung kaamirooyinkan oo leh zoom lenses, taasoo meel fog wax ka duubi kara, adigoo meel fog u taaganna waxa dhulka yaala ee kaamiraga si nadiif ah u arkayso iyadoona shucaac ku furan. markastana telefoonada cusub ee iPhone soo saarta waxay kusoo kordhisaa ama ha noqoto wax ka muuqda banaanka ama wax gudaha ku jiro aanan isha arki karin. iPhone waxaa kambaniga keliya telefoonada mar walba markay soo saarayaan ku faantama dhanka kaamirooyinka. mar walba Samsung uga faantama ha noqoto markay soo saarayeen 10 Max, haatan iPhone Pro iyo iPhone 11 Pro Max mar walba kusoo celinayaan dhanka kaamirooyinka. waxaan in badan ku arki jirnay kaamirooyinka night mode ama inaad duubi kartid habeenkii telefoonada Samsung, laakiin haatan waxay kusoo kordhiyeen night mode oo night vision camera, oo taasoo habeenkii hataa adigoo mugdi ku jirta aad si nadiif ah u duubi kartid wax kastoo ka horeeya. iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max ay dhammaantood markay imaato dhanka screen-ka ah ay yihiin telefoonadii abad ugu adkaa ay soo saarto iPhone ayaa inta badan telefoonadooda markay dhulka ku dhacaan, inkastoo inay sida Samsung-ka screen-ku qaali ahayn, laakiin inta badan ba jabo hataa iyadoo ay saaran tahay protector waxaa loo yaqaano. daawadayaal, waxaa laga yaabaa in badan inta caruurta haysata ama inta mar walbaba teleefoonkoodu gacanta ka fakado mar walba qarash gala, laakiin telefoonkan ay iPhone kusoo celisay. sidoo kalena wuxuu wataa garanti hadduu dhulka kaaga dhaco in kambaniga aad u tagaysid ama hadduu kaa jabo muddo 4 bilood ah ama ilaa 6 bilood gudaheed. laakiin fursadahan ayaa ka faa'iidaysan kara qaaradaha Asia, Yurub iyo Maraykan. sababta tahay Africa markaan runta isku sheegno inta badan telefoonada Africa sababta tahay ma celin karaan. Afrikaanku waxaa lagu tilmaamaa dad sajaamin yihiin, telefoonkaasoo iskiis u jibiyo inuu celiyo rabo. laakiin dhanka bateriga ayaa iPhone mar walba Samsung namboodka uga geli jirtay dhanka bateriga, laakiin iPhone 11 ayaa la yeelan doono inuu qofka isticmaali doono 3 saacadood oo isku xigto aanan joogsi lahayn. iPhone 11 Pro ayaa noqon doona 4 saacadood, iPhone 11 Pro wuxuu noqon doonaa 5 saacadood oo xiriir ah. wow, iyada nafteedu taas waxaa weeye qofkii xiiseynaya inuu teleefoonadan iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max haddii xiiseynayso, baterigu mar walba waxaa weeye priority number 1. qofka telefoon inuu gata rabo mar walba bateriga iska fiiri, sababtoo waxaa laga yaabaa inaad telefoonka wax kale u gadatay laakiin baterigiisu yahay wax baqtiyey ama wax mataqaanaa
aan anfac badan lahayn maanta inaad jaajar inaad ku haysid lacag badan ay kaa baxayso ka fiirso telefoonada cusub ee iPhone soo saartay ayaa leh maqal aad u wanaagsan audio sound waxaa loo yaqaano telefoonada dhawqa ka soo baxaya ayaa dhawaq aad cajiib u ah sidoo kale dhawaqan ciddii earphone isticmaalaysa ama jidka dhagaha la gishto dhawaqa ka soo baxaya wuxuu noqonayaa dhawaq aad ugu raaxaysatid dhawaqa oo isticmaaleen 8D cidda taqaana 8D waa dhawaq dheg ilaa dhegta kale u aadaya qaab aad u qurux badan noqon doona sidoo kale iPhone dhanka qadka markaad rabtid inaad wax soo download garaysatid ama wax soo xawiltid xawaarihiisu aad u sareeyo iPhone-nada hore ayaa lagu tilmaamay inay yihiin iPhone-na dhanka qadka ah sida qadka markuu laciif yahay in aadan wax badan ku qabsan karin taasoo uu kalifaya applicationada qaarkood sida Facebooka, Instagramka, Snapchat iyo WhatsAppka inaadan saarto u isticmaali karin laakiin iPhone ayaa noqonaya xataa qadkaada hadduu iljibinayo inaad ku raaxaysan doontid waa ballanqaad ay iPhone sameeyeen laakiin ciddii isticmaashay oo annaga aan ka mid nahay iPhone-kan inaba caadi maaha markan iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max ayaa noqon doona telefoonada dhanka markay imaato water resist ama biyo celinta ayaan telefoonada number 1 markii hore waxaa haystay telefoon aan biyo soo gelinaynin waxay ahaayeen Sony Max laakiin hadda koobka waxaa ka qaateen iPhone 11 kuwaas oo soo saaray telefoonna aan biyo haba yaraatee ayna soo gelin waxaa laga yaabaa inaad haysatid telefoon iPhone 10 Max runtii biyo ma galo telefoonada biyaha galin waxay kasoo bilaabanayeen 8 ilaa hadda aan marayno 11 laakiin biyaha laga hadlayo biyuhu dhan ma aha biyaha badda telefoonkaada haddaad ku tijaabaysid way gelayaan laakiin iPhone 10 ilaa 24 saacadood inay biyo galaan lagama yaabo laakiin intaas telefoonkeeda ay ka maqnaan karto ma ogolaanayso ma jirto ugu dambeyntiina ayaa ku dhawaaqday inay ku soo dari doonto fast charger waa charger gooni markii hore loo gadan jiray ciddii telefoonada iPhone-ka ama camiilka ama gadata ay ka siiso laakiin haatan telefoonadooda cusub waxaa ku jiri doono ama box ku dhex jiri doono fast charger kaasoo noqonayo markii ugu horeysay ee iPhone sameynayso in badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan teleefoonadan qiimahoodu waa imiso teleefoonadan iPhone 11 wuxuu ka bilaabanaya $700 $699 oo $700 ah iPhone 11 Pro waxa weeye qiimihiisa $999 iPhone 11 Pro Max waa $199 waa markii ugu horeysay iPhone telefoon soo saarto telefoon raqiis ama qiimo jaban ay ku soo saarto waxaa laga yaabaa in badan ay dhahaan hata telefoonadu ay soo saareen ma qurux badan siba 3 kaamiro laakiin iPhone already way ka barandegtay dhibaatooyinka ama challenge-yada Facebook isgaranaya waxaa laga yaabaa dad xiisaynin dad badan hata commenteeda kusoo qoraya leeyihiin tanka aan haystaaba ka qurux badan laakiin telefoon cusub wuxuu leeyahay wax kii hore uu lahayn haddaad mataqaanaa xiisaynayso telefoonkaada hore inaad haystid daawade adiga ayay ku siisaa badan haddaad ugu cusub tahay subscribe garay share garay like garay mahadsanid